mas-uuliyiinta mu'asasada alraxma oo horkacayo gudoomiyaha golaha fulinta sheekh cabdiqaadir xaaji cabaas iyo xubno kale oo ka tirsan golaha fulinta aqoon-yahano culimaudiin ayaa soo gaaray gobolka gedo gaar ahaana degmooyinka doolow iyo beled xaawo muddadii ay ku sugnaayeen degmada doolow soomaaliya waxaa u suura gashay inay halkaa ku qabtaan nadwi ciwaankeedu uu ahaa khayruunnaasi anfacahum linnaas. dhanka kale magaalada beled xaawo ayaa iyana lagu qabtay nadwooyin kuwaa la mid ah. imaashiyaha mas-uuliyiintan ayaa ku soo aadaya xilli dhismaheeda lagu guda jiro jaamacadda caalamiga ee gedo. mas-uuliyiinta mu'asasada alraxma ayaa ugu baaqay bulshada dal iyo dibadba in laga qayb qaato dhismaha iyo weliba dhammaystirka jaamacadda gedo. ugu dambayntii wafdigan ayaa gaaray halka uu ka socdo dhismaha jaamacadda caalamiga ee gedo, waxaana ay u mahadceliyeen dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay jaamacadda caalamiga ee gedo. saaka waa subax axad ah 28 bishii Oktoobar 2018. waxaan joognaa degmada beled xaawo gobolka gedo dhismaha jaamacadda gedo alcaalamiya. waxaan ugu soo booqday dhismihii jaamacadda wafdi ka socda ka mid ah culimmada Soomaaliyeed kana mid ah howlwadayaasha mu'asasada alraxma oo u saciinaysa ama u dadaalaysa hirgelinta jaamacaddan. rag culimo ahaa ayaa noo yimid. waxaa halkan taagan sheekh cabdiraxmaan maxamuud xirsi, sheekh cabdiraxmaan tajwiid, sheekh cabdirasaaq xasan cali, doctor cabdilweli sheekh maxamed xaaji yuusuf, sheekh cabdiqaadir xaashi cabaas, cabdiqaadir xerow, doctor cabdinuur faarax cali, cabdinuur faarax taano. raggaas ayaa noo yimid oon maanta maaragtay ku qaabilnay dhismihii jaamacadda gedo meesha ay ka socotay. aad baan ugu faraxsannahay inay arkaan nagalana qayb qaataan qaab socodka jaamacadda ay u socoto. meel fiican bay maraysaa hadda oo jaamacaddii waatan dhismihii ugu horreeyey waa soo kacay. marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in oo uu inoo hirgeliyo noo dhammaystiro. waxaan meeshaan duco aad uga diraynaa dadkii dhulkan gaday oo degmada beled xaawo ay ugu horreysay iyo muqdisho, dadkii ka qayb qaatay dhismahan oo ay ugu maaragtay gacan badan yihiin jaaliyadda Australia. khayr badan allaha ka siiyo. adinku waad soo bixiseen, waadna maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala markii baa idinku dambeysay, laakiin wax weligeed hara oo ummadda islaamka ay ka faa'iidaysato ayaa meeshii hadda maaragtay ka socda oo ka hirgelaya. miisaanka xasanadka allah idinku daran leenahay. sidoo kale waxaan codsanaynaa in laga qayb qaato. weli ma dhowa meel walba oo la joogo, cid walba oo arkaysa, cid walba oo daawanaysa inay ka qayb qaadato. hantidan muslimiinta ay wada leeyihiin oo waqafka ah, cid walba oo muslim oo ka faa'iidaysatana ajarkeeda ayaad insha Allah tacaala helaysaan. aad baad u mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. walaalaha imaqlaya ama idaawanaya, salaamullahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. boorkan iga gadaalaya waa mashruucii jaamacaddii gedo dhismaheedii weeye. goobta aan joognana waa degmada beled xaawo, halkii laga hirgeliyey jaamacadda dhismaheedii ayaan dhex taagannahay. runtii aad baan ugu faraxsannahay, waana dareen aad u qiimo badan in horumarkii ay deegaanku iyo bulshadu ay ku taamayeen in ififaalihiisii uu muuqanayo, in wax la taaban karo ay meesha ka jiraan, dhismihii inuu socdo, kuliyaddii koowaad iyo qayb guryihii maamulka ka mid ah inay dhismayaan, qaybihii kalena maxaa la yidhahdaa sidoo kale lagu dari doono. dhismaha jaamacadda dhul weyn buu haystaa oo ilaa cabaar loo soconayo. runtii elihiisu waxa weeye waa dheer yahay, xagga dherarka ballaciisuna ma xuma. weliba xataa dhul kaloo reserve ah oo in lagu daro ah ayay u sii celiyeen walaaladii maamulka joogay. waxaasoo dhan walaalayaal waxay ku suurageli karaan in iskaashi gacmaha in laisqabsado lagana wada qayb qaata mashruucan. waxaan aad ugu mahad celinayaa walaaladii reer beled xaawo oo hore dhulka gadidiisa qayb weyn ka lahaa, walaalada reer muqdisho oo iyagana gacan weyn ka geystay dhulkaas waasicintiisa, reer Australia oo runtii dhismahan hadda bilaabmay xooggiisa lacagta lahaa dhismaha bilowgiisa, reer Nairobi oo hadda naftirkooda bilaabeen maxaa la yidhahdaa ololihii yabooha iyo weliba lacagihii bilowgeedii inay soo dirdiraan. wafdiga jooga ee waqtiga badan geliyey. annaga hadda wafdigeenan waxaan ku nimid inaan halkan abaabulno. ilaahay fadligii lacag 20 kun ah ayaa beled xaawo nooga soo ururtay oo la yaboohay. doolowna sidoo kale 20. safar guulaystay buu yahay. waxaan aad u codsanaynaa ma dhowa hawshu, mashruucuna mashruuc yar ma aha, in laga wada qayb qaato. intiina garanayso magaceenna iyo muuqaalkeennaba inay arrinka u gurmadaan, u istaagaan ayaan ka codsanaynaa, kuna dhiiri gelinaynaa. waxaan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala biasmaa'i alxusna wa sifaatihi alculaa dadka wax la baxay inuu miisaanka xasanaadka ugu daro, inuu wax ka khayr badan uu siiyo,
inuu maxaa la yidhahdaa caafimaad ku siiyo, inuu cimri dheer ku siiyo, inuu guryaha ugu hagaajiyo, ubadka ugu hagaajiyo, in adduunyadooda iyo aakhiradooda ugu barakeeyo, caafimaadkooda ugu barakeeyo, dad barakaysan uu ka dhigo meel kasta ay joogaan. halkan waxaan ka salaamaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, gaar ahaan jaaliyadda hawshan ay raxma wado ku hawlan. waxaan ugu bishaaraynaynaa maanta inaanu soo booqannay annagoo wafdi ah oo maanta taariikhdu sheekh hadda sheegay 28 Oktoobar aan joogno dhismihii jaamacadda Gada laga hirgelinayay, jaamacadda Gada Alcaalamiya. waxaa ilaahay mahadii ah inay hawshu meel fiican marayso. waxaan u mahadcelinaynaa qof kasta oo ka qayb qaatay, qof xoolo uga qayb qaatay, qof xoog uga qayb qaatay, iyo qofkii waqtigiisa geliyey, iyo qofkii ku faraxsan, intaba ugu mahadcelinaynaa. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha fikirka jaamacaddan lahaa iyo mu'asasada guud ahaanba raxma. ilaahay waxaan ugu baryaynaa subxaanahu watacaala howlahay qabteen oo dhan inuu alla ka abaalmariyo, miisaanka xasanaadkana u saaro, ilaahay ubadkooda iyo iyagana ku barakeeyo. waxaan halkan baaq uga jeedinayaa qof kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaya, waa cabdiraxmaan maxamuud xiriis cabdiraxmaan tajwiid, oo rajaynaya hadalkan meel fog inuu gaari doono, inay ka qayb qaataan dhismaha iyo dhammaystirka hirgelinta jaamacaddan oo hadda meel fiican marayso, oo insha allahu tacaala labadii kuliyadood u horreysay hadda dhismahoodii uu meel fiican marayo. intii kalena la doonayo insha allahu tacaala in ay ku xigaan. wax kasta oo dhammaystirmay mar bay bilowdeen, bilow fiican baa noo muuqanaya, waxaan aad iyo aad ugu farxnay baa noo muuqanaya, shaqo fiican baa soconaysa. waxaan leenahay marka qof walbow ha ka harin, qof walbow maalinkaad aragta jaamacaddaas oo quruxdeeda aad la yaabto oo kuliyaadkeeda dhammaystiran yihiin, qof kasta oo wax ku darsaday wuu ku farxi doonaa. qof kasta oo wax ku darsana markaasuu shallaayi doona, dhihi doonaa abbayow berigii maxaan wax ku darsan waaye. marka hadda qof walbow ogow, sadaqa jaariya halka ka socota. waa wax naftaada ka qaado, naftaada u qaada, waa wax dadkaaga ay ka faa'iidaysanayaan, carruurtaada ka faa'iidaysanayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala. wax ummadda Soomaaliyeed ka faa'iidaysan doonta weeye. qof kasta oo hawshaas awood ilaahay u siiya subxaanahu wa tacaala, haba yaraadaani inuu bixiyo wax, ha soo bixiyo, haba sugin cidna inay kula soo hadasho. halkaas waxaa ku qoran ood arkaysaan akoonkii jaamacadda, bangigeedii iyo telefoonkeedii iyo wixii baa ku qoran. qof walbo halkaa kusoo tuur, waxaad kusoo tuuri karto. ogowna waxaad bixisana allah kuu bedelaya subxaanahu wa tacaala. ogow xoolahaagaa kugu barakoobaya, xoogaaga kugu barakoobaya, cumrigaaga iyo caafimaadkaaga kugu barakoobaya, carruurtaa kugu barakoobaysa. qof kasta oo wax ku darsada meeshaas biidni illahi tabaaraka wa tacaala, waxaan rajaynaynaa inuu ajirkiisu socon doono oosan marnaba ka joogsan doonin biidni illahi tabaaraka wa tacaala. maanta waxaan dhex joognaa annagoo ay nala socdaan aqoonyahan, culamaaudiin iyo mas-uuliyiintii mu'asasada intaba. waxaan dhex joognaa dhismihii jaamacadda Gado. runtii marka ugu horreysa waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay mashruucan, oo sida wanaagsan uga qayb qaatay, oo ugu horreeyaan walaalihin reer Australia. allah idin barakeeyo maalkiina iyo awlaadiinaba. runtii waxa maanta muuqda ama shaqada maanta socota waa mirihii iyo wixii aad la baxdeen weeye, waana idinka horreeyaan insha allahu tacaala. maalin aad u baahan tihiin, ood u baahi badan tihiin baad heli doontaan biidni illah. inta hadda shaqada wada oo reer Nairobi hadday ahaan lahaayeen iyo meelaha kale intaba, dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay laabaan dadaalka ay wadaan, maadaama shaqadii ay meel fiican marayso. inta aan la soconin oo ayaguna kale waxaan leenahay baaq baan u diraynaa. walaalayaal, waa la isku tashtay, maanta waxaa socda horumar weyn. runtii mashruucan waa mashruuc waayo caam ah oo dadkoo dhan mirihiisu ay helahayaan. waxaan ugu baaqaynaa iyaguna inay kacaan oo laga qayb qaato. annagu waxaan u nimid laba arrimood: inaan shaqadii socotay aan soo aragno oo runtii aad noo farax gelisay, iyo dadkii mashruucan bilaabay runtii oo igu horeeyaan in dadkii deegaanka dhulka ay gateen, inaan mar labaad aan kicinno. runtii ayaa is abaabuleen, lacag fiicanna hadda ay nooga soo xarootay, dadkuna hadda ay horey u socdaan. ayadana waa bishaaro weeye. walaalayaal, mashruucaas in la isugu tago ayaan baan ku diraynaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu noo fududeeyo hawshaas. intii wax la baxdayna ilaahay uu barakeeyo maalkooda, awlaadoodana ilaahay uu xifdiyo. cumar cabdiraxmaan sheekh, xafiiska warfaafinta mu'asasada alraxma, gobolka Gedo, magaalada Beled Xaawo.